maanta waxaad qaadateen tababarkii ugu horeeyay oo jir iyo farsamaba leh waxaad kaloo qaadateen tababar maskaxeed oo ah inaad u diyaar garooween maskax ahaan inaad qarankiina ku difaacdaan naftiina iyo aqligiina iyo xooggiina wax allaala waxaad kartaan diyaar garowgaasi aad u diyaar garowdeen la dagaalanka khawaarijta iyo inaad shacabka Soomaaliyeed amnigooda iyo maaragta sugtaan waxaad go'aan ugu qaadateen inaad dhab idinka noqoto ayaa idinka rabaa qofka bani aadanka ah waxa ugu dambeeyo oo uu bixiyo waa nafsadiisa waxaad keenteen oo la soo shirtagteen adinkoo dhalinyaro ah mustaqbalkiina hor leeyahay inaad dalkiina iyo dadkiina u dhimataan iyo diinkiina waxaan aaminsanahay oo maanta la idin soo xulay oo kumanaan Soomaaliyeed idinkaga soo xulay iyo malaayiin in dalka wax weyn aad ka qaban kartiin tababarkaas waxaad u qaadateen oo kaliya naftaada waalidkaaga caruurtaada iyo dalkaaga iyo diintaada inaad ku difaacdo waxa idinka reeban in lagu dhibaateeyo shacab Soomaaliyeed waxa idinka reeban in lagu dhibaateeyo qof dulmana waxa idinka reeban wax walba oo xumaana inaad ku geysataan tababarka la idin siiyay oo diintuna xarintay shuruucda dalkana xarintay ogaada intaasi war kaliya maaha waa maaragta damiir waa qawaaniin waa shariicada islaamka inta ay nafarayso qodobka labaad waxa waaye waxa u socotiin ila khawaarij la jihaadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaataan waxa qabanaysiin inayna salaadiina ka tagin inayna cibaadadiina dayacin waxa la idinka rabaa oo maaragta oo ku hurdaysaan kuna soo kacaysaan waxa la diriraysay inay khawaarij yihiin kuwii nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu ka dardaarmay in hadduu noolaan lahaa uu la dagaalami lahaa cirib tiri lahaan kuwii nabigeena sallallahu alayhi wasallam ku sheegay wax walba oo la diriraay iyaga ka mudan kuwaas la diriraysaan sida la socotiin waxa lagu jiraa maalmihii xurriyadda oo caawa waxay noqonaysaa 1 Luulyo waa maalinka aad qalin jabinaysaan habeenkii sabal sida isugu aaday fiiri waa maalinkii dalkeena xurriyad qaatay guutadiina waxay noqon doontaa guutadii xurriyadda dalka ay dhameystiri lahayd ayay noqon doontaa hadii Ilaahay maalmaha ku abtirsanaysaan maalmo aad maaragta u qiimo badan waxaana rabaa oo ogaanaysiin dadka Soomaaliyeed dalkan wax badan wiilal badan ay u bixiyeen wax badan ay maaragta ay soo hagaajiyeen wax badan ay canshuurtooda ku bixiyeen insha Ar-Rahmaan ma dayacmi doonaan ballantaasaan rabnaa annaga oo dhan inaan qaadno ka wasaaradda gaashaandhig ahaan ka ciidan xoogga dalka ahaan shacabka ogaanaysiin geesiyaal birlaba ayaa qarankan maalin walba u soo tababaranaya oo idinka aad dhasheen oo waalid u tihiin walaal idina xaasis u tihiin oo wax walba idin ah ayaa maalin walba u soo qalin jabinaya qarankaasna ma dayacmi doono khawaarijna waa laga adkaanaya shacabkan waxa laga rabaa inay adkaystaan inta khawaarij lala dirirayo ay bixiyaan canshuurta ay adkaystaan oo wax walba oo qarankan uu u baahan yahay ku garab istaagaan naf iyo maal